barnaamijka shabakadda badbaadada wax soo saarka ee PSNB qaybtiisa xoogga dadweynaha ayaa si rasmiya looga daafuray degmada Baabili ee gobolka Faafan waxaana daafurka barnaamijkani ka soo qayb galay wasiirka xafiiska beeraha dawladda deegaanka Soomaalida maamulka degmada Baabili kuwaasi oo u koor galay shaqooyinka ay dadweynuhu ka qabanayaan barnaamijkani wasiirka xafiiska beeraha dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Cabdulqaadir Iimaan oo ka hadlay daafurkani ayaa tilmaamay in barnaamijkani wax badan ka qabanayo nolosha bulshada iyo sidoo kale badqabka deegaankaba maadaama uu qabanayo shaqooyin waxtar u leh labada dhinacba waxay fursad aan u helay in maanta aynu daafurro barnaamijka badbaadada shabakadda wax soo saarka qaybtiisa xoogga shacabka in looga faa'iideysto horumarka taasoo lagu qabanayo shaqooyin kala duwan sida ilaalinta carrada biyaha biyo ururinta waraabka dhiraynta dhulka nabadguryo dib loo soo celiyo shaqooyin badan noocaas lagu qabanayo barnaamijkan oon shirweyne December koodeeda qabanay qorshe baa la dhameystiray waxaanu ku heshiinay markaa in December dabayaaqadeeda ilaa iyo maaragtay bilowga January la bilaabo guddiyadii kala duwanaa iyo diyaargarowga waa la sameeyey marka maanta waxaa noo suuray inaan ku daafurro shaqooyinkii degmadani Baabili tuuladani Biiqa sidaa daraaddeed gobollada iyo degmooyinka oo dhanna waxaanu faraynaa inay shaqooyinkii xoogga shacabka ay bilaabaan laga bilaabo berito oo 20 bisha December ay bilaabaan shaqooyinkana tayadooda la ilaaliyo cid kasta oo shaqaysatana xaqeedii markaa la siiyo qorshe waa inuu saa noqdo oo ay noqoto dadku waxay helayaan wax ku salaysan maaragtay shaqada ay qabtaan way noqoto sababtoo ah dadka xoogsatada waa 1,440,000 oo qof way haddii dadkaasi muddadii loogu talagalay ay bil kasta ka shaqeeyaan ilaa daqiiqada sanadka shaqooyin badan oo la taaban karo ay qaban karaan arinta kale aan rabno shacabka in ogaadaan waxa weeye barnaamijkan badbaadada shabakadda wax soo saarka hubanti la'aan buu ku jiraa inuu soo soconayo sanadaha soo socda laakiin sanadkan waan haysanaa fursadda aan haysano inaan ka faa'iideysano wax kasta aan qaban karo aan qaban ayaa muhiim ah innaguna aan isku tashano waxaan qabsan karin haddaan qabanno ilaahayna ina garab istaagi dhibaatooyin badan iyo duruufo badan haystana inaan ka gudubno ayay u badan tahay marka waxaan shacabka leeyahay shaqadii aynu u dhaqaaqno natiijana aynu ka keenno aad baad mahadsantihiin gudoomiyaha degmada Baabili Cabdi Caydiid Beegsi ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay in degmadani dad ka badan 27,000 oo qof ay ka faa'iideystaan xoogooda barnaamijkani si oo qabta shaqooyinka kala duwan ee mashruucani uu fuliyo in goobtana joogno oo la dhaho qabalaha Biiqa in uu ka mid yahay 17 qabale ee ka faa'iideystayaasha ah guud ahaan degmada Baabili qaybta public workiga oo 27,632 nafar ama si kala hadaan dhigo 10,599 qoys marka nafar ahaan 27,000 qoysana waxa weeyaan 10,599 waxa mar kale la dhimay oo lagu soo reebay 30% oo kamid ah dadkii waxa hadda ka hor qaadan jiray 53,000 iyo abaf laakiin maanta iyadoo ay xukuumadda iyo xisbiga ay geliyeen dad wacyigelin ballaaran gashiyo kala duwan oo dhinaca beeraha ah waxay bulshada ay ku baraarugtay inaad sii haato baahane caawimaashiga ka suga in ay diinteena Soomaaliyeed laftigeeda farayso in gacanta sareysa iyo gacanta hooseysa inay hoos sareysa ka khayr badan tahay dhammaan dalagyada kala duwan ee nafta bini'aadamku u baahan tahay iyo nutritionka dhammaan bini'aadamku baa si food balance ay helaan waxa ay bilaabeen iyaguna inay ka faa'iideystaan biyaha roobka ay qabtaan isla markaa intay is abaabuleen markii wacyigelin badan oo siisay xukuumadda iyo xisbiga BB ilaa heer wasiiro xildhibaano dhammaan ay bulshada ay dhex yimaadeen wacyigelin ballaaran la siiyey waxa iyaguna bilaabeen dadkan laftigooda dusha ku nool aaga muli xilliga roobka beerin jiray xilliga jiilaalka ee engegan waxay bilaabeen inay waro waaweyn qotaan oo markaa ka faa'iideystaan qotaan gaar ahaan dhinaca khudaarta hadda qabale gudbiya ma jiro qabalada qalaalka waxa kamid ah Biiqadan dhandhamane xasan guraajo fiyaan jabso irisa inta qabalada waxaa halka saaro waaweyn oo balaya harar intay shil la soo galaan machinery-ga waaweyn sida dowser loader iyo wixii lamada inta la soo galaan inay hadda ay bilaabeen iyaguna waraabka ka faa'iideystaan saa daraaddeed
waxa aan hadda insha allahu karim muddo kooban aan rajaynaynaa annagoo sii wadana olaha ku jihaynta dhinaca wax soo saarka marka waxaan leenahay nimcada ilaah waadna see ilaahu noogu sii wad barnaamijkani oo wajigiisii shanaad ayaa deegaanka guud ahaan waxaa xoogooda uga faa'iideysta barnaamijkani in ka badan 1,400,000 oo qof